السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا كوبعية سوفتوير على بعد قبرتين كورسين كلا دوان كلا بحا شبكة كلا بحا عشر كم نقول عشر كيني لواد كويك بوجا introduction بان كل حجنا تو accounting هنا accounting كفهنو وحيالا كقومي هاي basic ahaan casharkan wuxuu noqonayaa casharkeenii labaad aan uga gudubno casharkan waa taanu casharkii hore soo dhiganay assetka inuu leeyahay liability-ga iyo owner's equity-ga laisku geeyay marka assetka waa hantida shirkadda taalo oo dhan marka wuxuu leeyahay hantidaas waxay ka koobnaan kartaa deyn shirkadda deyn soo amaahatay iyo hanti nimankan shirkadda le ay leeyihiin marka waxaa kala jira statementiyo kala duwan ee lagu xisaabiyo statementiga laba statement baan ka dhigan halkan oo aad u muhiim ah waxa loo yaqaanaa balance sheet statement iyo income statement marka laba statement baan dhiganaa ka casharkan waxaan ku dhiganaa laba statement balance sheet waa qaansheeg balance waxa loo yaqaanaa laba sheeg oo isleeg sheetna warqadii businesskaaga inuu wax khaldan iyo inuu wax saxan yihiin kala sheegaysa oo balance kala dhigaysa balance gareynaysay ama dheelitiraysay marka warqadan waxa lagu adeegsadaa inay shirkadaadu wixii aan waxba ka khaldamin wixii aad faa'iiday iyo wixii aad khasaartay inay ku kala cadeyso marka shirkadan marka balance sheet ku kala kooban yahay saddexdan ka kooban yahay asset iyo liability owner's equity asset-ka ugu horeeya marka balance sheet wuxuu ilaalinayaa xeerkii hore equation-kii hore asset-ka inuu leeyahay liability-ga iyo owner's equity-ga oo la isku geeyay marka asset-kii asset-ka hantida shirkadda waxay ka koobnaan kartaa laba asset-ka loo kala qaybiyaa asset muddo hal sano ka yar iyo asset muddo hal sano ka badan marka current asset baa loo yaqaanaa muddada wixii hal sano ka yar asset-ka ama hantida leedahay marka asset-ka tusaale waxaan soo qaadanaa cash horta waa asset waana current asset iyo investment-iga iyo account receivable iyo inventory supply marka investment-iga wixii short term investment-iga oo kale waxaa loo yaqaanaa current asset account receivable waxa loo yaqaanaa waa deynta kaaga maqan customerska ama macaamilkaaga inventory waxa loo yaqaanaa alaabta ku taala supplieska waa alaabaha aad isticmaalaysid hadda computerka oo kale khadka ama printerka isticmaalaysa khadka iyo waraaqaha ayaa loo yaqaanaa supply fixed asset waxa loo yaqaanaa wixii muddo hal sano ka badan marka sida dhulkii land shirkadu markay dhul leedahay waa muddo hal sano ka badan bay isticmaali kartaa equipment qalabkii waaweynaa sida guwaaridii karyaanashii isticmaalaysa waxaas oo dhammaa loo yaqaanaa halka waxaan ka gudbanaa wixii asad ah waxaan u gudbanaa liability waa deyntii lagu lahaa shirkadda marka liability-gu way kala duwanaan kartaa account payable waa deynta lagu yeesho salary payable waa salary waad garanaysaa waa mushaharka haddii macaamiil ninka kuu shaqeeya ama ninka wage kuu shaqeeya haddii mushahar siin weydid waa deyn kugu qoran wage payable wax loo yaqaanaa salary wage waxay kala duwan yihiin midna week baa loo siiyaa salary bill baa loo siiyaa wage-na waxaa loo siiyaa week marka ninkan kuu shaqeynaya ama employee-ga shaqaalaha kuu shaqeynaya salary-ga la siinayo deyn buu kugu yahay hadda marka muddadii dhaafto marka midna mushaharku adduunku kala duwan yahay qaar bil baa loo siiya qaar week baa loo yaqaan marka kuwa salary waxa loo yaqaan kuwa bisha loo siiyo wage-kana waxa loo yaqaan kuwa week loo siiyo owner's equity baa isaguna jira hantida shirkadu ninkani leeyahay marka hantida shirkadu ninkan leeyahay waxa loo yaqaan capital stock lacagta uu shirkadu leedahay bay ka koobnaan kartaa return earning waxa loo yaqaanaa lacagtan dib loogu celiyo businessku markuu faa'iido siyaasadaha policy-ga uu isticmaalo waa in uu dib ugu celiyo shirkadda lacag marka waxa loo yaqaanaa retaining earning baa lacagta loo yaqaanaa marka halka waxaa kaga gudubnay balance sheet waxa loo yaqaanay waxaan u gudbanaa income statement ama waxa loo yaqaanaa profit and loss marka kan wuxuu ku kala sheegayaa inaad loss gashay iyo inaad profit heshay marka laba kaliya ka kooban isagu waa revenue iyo expense kaliya marka revenue waxa loo yaqaanaa dakhli kasta ku soo gala meeshuu doonaya kaa soo galo expense waxa loo yaqaanaa kharash kasta oo kaa baxa meeshuu doonaya kaa baxo marka revenue kaa soo gali kara adeegaad qabatay interest aad saaratay meel interest aad heshay marka expenses kuna wuxuu noqon karaa in mushahar dee kuwa ku bixisay
cost of goods sold alaabaha waxay kugu joogaan iyagu waa expense. Insurance cost hadda insurance caymis gashid, office supplies hadda iyagana alaaba office ka soo iibsatid, waxaasoo dhan wuxuu noqonayaa expense. marka expense way fara badan yihiin, revenue-guna fara badan yihiin, kala duwan yahay. marka labada markan kharashkii soo galay, kharashkii iga baxay iyo dakhligii soo galay markaan kala jaro, markaas aan ogaanayaa profit baan helay mise loss. marka barnaamijkan noo kala sheegaya intaas waxaan kusoo gabagabeeynaa income statement-tigii loo yaqaanay. marka hal shay baan u gudbanaa undeposited fund wax loo yaqaano. waa lacagtan marka shirkaddu waxa marka lacag loo dhiibo isla markiiba maqalka kuma rido, way haystaa, habeenkii baa la xisaabiyaa, markaasaa maqalka xisaab ahaan xisaab xidh lagu sameeyo baa maqalka lagu ridaa. marka undeposited fund marka intaan xisaab xidh lagu sameyn maqalkii lagu riday akoonka lagu ururiyo ama meesha lagu ururiyo baa loo yaqaan undeposited fund. marka intan waxaa kusoo gabagabeynaa informationkii ku saabsanaa accounting. haddeena waxaanu gelaynaa wax loo yaqaano quick book 2016 versionkii ugu dambeeyay baanu gelaynaa. marka asxaabay saa ula socda. marka hadda markaad casharada soo daawatid si fiican baad uga bogan doontaan inaad barataan quick booka insha Allah. wixii su'aalana insha Allah waxaad kusoo qoraysaan commentiga YouTube-ka. marka asxaabay waxaan kusoo gabagabeynayaa casharkeena intaa. waxaan leeyahay casharada ka faa'iideysta. casharkii buugga isagoo serial oo faahfaahsan oo kooban baan idin dhigi doonaa insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi